السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa uu ahaa ninkan ay ku dhacday qisadani nin dhalinyaro oo Amerikaan ah isla markaana shaqo doon ah. maalin ayuu shaqo u raadsaday shirkadda weyn ee lagu magacaabo Microsoft. markuu tagay xafiiskiisa lahaa shaqada waxa loo sheegay in ay shaqo jirin marka laga reebo shaqo yar oo ah nadiifinta musqulaha ay isticmaalaan shaqaalaha shirkadda. ninkii dhalinyarada shaqo doonka ahaa uu aqbalay shaqadii kadibna waxa bilaabatay in la wareysto oo waxa la weydiiyay ma leedahay ciwaan Gmail ah si aan kugu soo dirno shaxda waajibaadka shaqo ee laga doonayo iyo si aan isu dhaafsano xogaha waayo waxaan dhaxmari doona shaqo iyo wada shaqayn. wuxuu ku jawaabay shaqo doonkii anigu ma lihi ciwaan Gmail ah inta gurigeeda ma yaalo kombiyuutar. ninkii shaqada bixinayay ayaa qariibsaday ninka shaqo doonka ah hadalkiisa kadibna wuxuu ku dhahay niman ciwaan Gmail ah lahayn ma aan wax jira qof aan jirinna xaq uma laha in la siiyo shaqo ee iga bax xafiiska. ninkii shaqo doonka ahaa asigoo murugaysan ayuu ka soo tagay xafiiskii wuxuuna markaa hanti ka haystay $10. wuxuu bilaabay in uu fakaro isna weydiiyo sideen shaqo kale ku heli karaa lacagtan yarne sideen qoyskeeda ugu biili karaa ilaa aan ka helo shaqo kale. intii uu gurigiisa u soo socday ayuu suuqa ka soo iibsaday sanduuq buuxa oo yaanyo ah kadibna uu sii gaday wuxuuna ka helay xogaa lacag ah kadibna wuxuu haddana soo iibsaday sanduuq kale oo yaanyo ah ilaa uu helay $60. sidaa ayuu wax soo gadayay isla markaana uu sii iibinayay ilaa ay u suura gashay in uu iibsado gaari kadibna wuxuu soo iibsaday gaari weyn oo ah nooca xamuulka qaada. waxay kadibna haddana wuxuu soo gatay dhowr gaadiid oo nooca badeecada daabula ah. 4 sano kadib ayaa lagula taliyay inuu hantidiisa caymis geliyo wuxuuna tagay waaxda caymiska. markii laga qoray xogta ayaa la weydiiyay oo la dhahay ma leedahay ciwaan Gmail ah wuxuuna ku jawaabay maya. waxaa lagu dhahay adigoo leh waxaan oo hanti ah sidee ku dhacday in aad noqoto bilaa ciwaan waxaa tahay doqon aan wax badan fahansaneyn. marka ayuu ku jawaabay haddaan lahaan lahaa ciwaan Gmail ah maanta ma lahaateen waxaan oo xoolo ah ee waxaan ahaan lahaa nin miskiin ah oo u nadiifiya musqulaha shaqaalaha shirkadda Microsoft. 5 sano kadib wuxuu noqday mid ka mid ah ragga iska leh shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya cuntada iyo iibinteeda ee dalka Mareykanka. haddii uu ciwaan Gmail ah lahaan lahaa meeshaasi ama meel u dhow ma gaarteen. qofna ha u ogolaanin in uu ku xadido xuduudda awooddaada. adigu degso qorshahaada iskuna day in aad ogaatid meelaha aad ku fiican tahay.